waxaan wataa hal codsi oo kaliya waan idin baryayaa hal codsi oo kaliya gabadhayda ii qaada waxa qasaba in hadda la geeyo dhakhtarka waan idin baryayaa kaligeedu ogolaada inay gudubto anigu waan iska joogayaa waan idin baryayaa gabadhayda ii qaada Leo G waa hooyo Chinese oo isku dayaysay inay badbaadiso nolosha gabadheeda waxay baryaysaa Leo G booliska waxayna hor taagantay kantaroolka hortiisa waxayna ka codsanaysaa inay u ogolaadaan gabadheeda yar oo xanuunsanaysa inay gasho magaalada gabadha oo lagu magacaabo Hobin da'deeduna tahay 26 sano waxa ku dhacay kansarka dhiigga waxayna si dhaqso ugu baahantahay daryeel caafimaad way u diideen booliskii inay ka soo baxaan gobolka Hobi oo ah halkii uu ka soo biloomay fayraska corona markii koobaad erayadan ay ku hadlaysaa hooyadani waxaan ka cadhaysanahay inaad caawinaysaan oo daaweynaysaan kaliya dadka qaba fayraska corona laakiin haddaan nahay dadka ka cabanaya kansarka dhiigga sidoo kale waxaan u baahannahay daryeel iyo caawimo waan ogahay inaan ku soo beeganay waqti adag laakiin dadka ka cabanaya xanuunada kala duwan sidoo kale waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad gabadhayda jidhkeeda oo dhan waxa ku faafay xanuunka kansarka dhiigga waxayna u baahan tahay dhakhtarka booliska China way u diideen inay soo gasho goobta si loo xakameeyo xanuunka kadib wax ka badan hal saac oo hooyadu ay baryo iyo oohin isku dartay way u ogolaadeen booliskii hooyadii iyo gabadheedii inay gudbaan si ay u soo qaataan dawada iyo caafimaadka